السلام عليكم صاحب بيال وبرنامج إنه كده قاعد دونه waxyaabihii 24 saacadood ee u dambeeyay dunida ka dhacay intii aynu ka gaadhno Ilaahay u gulaanshihi intaynaan barnaamijka u guda gelin waxaan idinka codsanayaa jaalayaal inaad ku soo dhawaataan madashan jiraalka maanta like-na inoo saartaan barnaamijka siina share garaysaan si ay qayb uga noqoto linka page-keenan mahadsantihiin cidda socdaalka Shiinaha ayaa bixinaysa fiishad bilaash 10 maalmood ah dhammaan ajaanibta caalamka oo dhan ay ku buuqanayaan kuna dalxiisayaan Shiinaha talaabadan oo lagu sheegay si kor loogu qaado heerka imaatinka dalxiisayaasha qodobka xiga wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in qasnada bangiga dhexe ee Suuriya ay ku jiraan dahab qiimihiisu gaadhayo 2.2 bilyan dollarka Mareykanka ah iyo in ka badan 100 milyan oo kaasha fiiro gaar ah ka waran taasoo bangiga ay adduunka inta la eegayaalo aan maalin oo dhan cidi eegin muddadan dalku isbedelka ku jiray amnigeeduna uu sugan yahay qodobka xiga sirdoonka Ukraine ayaa u muuqday in ay gudaha Ruushka ka fuliyeen mid ka mid ah hawlgalladii ugu muhiimsanaa markii lagu dilay gudaha Ruushka ee caasimadda Moscow mid ka mid ah saraakiishii ugu sareeyay ee ciidamada Ruushka qaybta kiimikooyinka iyo ka hortagga nukliyeerka sareeyo guuto Igor Kirillov qodobka xiga madaxweyne Xasan ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay ergiga Shiinaha u qaabilsan geeska Afrika Suubin oo ay sheegeen in ay ka wada hadleen xaaladaha isbedelka geeska Afrika joojinta xiriirka u dhaxeeya labada dal waa Soomaaliya iyo Shiinaha ay ka dhigan tahay kulamada soo noqnoqday ee Shiinaha iyo Soomaaliya Beijing ayaa kor u qaaday sanadihii u dambeeyay xiriirka Soomaaliya oo qayb ka ah joogitaanka Shiinaha ee Afrika balse wuxuu u arkaa Soomaaliya oo ay wadaagaan xiriir diblomaasiyadeed oo ka soo bilaabmay ilaa maalintii Shiinuhu xornimada qaatay inay muhiim u tahay soo celinta iskaashiga ee waqtiga dheer tobaadkii hore xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka ayaa qaabilay fiirka Shiinaha oo uu kala hadlay qalabaynta xarunta baarlamaanka sababtoo ah safaaradda Shiinuhu waa ta ugu dhaqsaha badan ee ka jawaabta codsiyada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u gudbisato hay'adaha dawladda Soomaaliya ee doonaya dib u dhiska iyo qalabaynta laakiin dawladdu may awoodin mashaariic inta ka badan oo uu Shiinuhu doonayo inuu ka hirgeliyo Soomaaliya xiriirka Soomaaliya iyo Shiinuhu waa mid ay ka soo horjeedaan in uu tallaabooyin hore u qaado ama uu hore u socod yeesho wadamada reer galbeedku ugu horeeya Mareykanku oo aan doonaynin marnaba wadamada xuluufadiisa uu arko Mareykanku danihiisa gaarka ana uu ka fushado in uu saameyn ku yeesho dalka Shiinuhu sanadkan sii dhamaanaya in ka badan 2 jeer ayaa la sheegay in ay kala hadleen saraakiil sare ka tirsan dawladda Mareykanku dawladda Soomaaliya in ay ka soo horjeestaan joojinta xiriirka Shiinaha oo Soomaaliya ka doonayo isku day kasta oo Shiinuhu isku ballaarinayo xiriirkiisana ku hormarinayo oo Soomaaliya la leeyahay waxa xaqiijiyay diblomaasi sare oo ka tirsan dawladda Soomaaliya Mareykanku wuxuu soo bandhigay inay ka tagaan Shiinaha dalal Soomaaliya ka sareeya oo uu ku jira ama ka mid yahay dalka Sacuudiga laakiin Soomaaliya ma aha sida Sacuudiga oo kale oo dhaqaale ahaan halka Sacuudigu taagan yahay aan ognahay oo balaayiin dollar oo ganacsi ay wadaagaan Shiinaha balse ujeedadu waa inuu Mareykanku ka hortago inuu Shiinuhu isku dayo istaraatiijiyadda Soomaaliya inuu ka faa'iideysto isbedelada dunida ayaa muujinaya in uu dhacayo loolan caalami ah oo u dhaxeeya Shiinaha iyo Mareykanka loolankan u dhaxeeya Shiinaha iyo Mareykanka ayaa laga hortagi karaa iskaashi siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed oo caalami ah oo adag suura gelinaysana in labada awoodoodba laga faa'iideysto si waxtar leh waliba oo laga arko ama ka muuqata dalalka gobolka ee ay wada joogaan labadan quwadood Shiinaha iyo Mareykanku qodobka xiga dawladda cusub ee Suuriya ayaa isku diyaarinaysa inay Ruushka iyo Iiraanba magdhow ka qaadato sababta oo ah lana xidhiidha inay suuqa isirsifaynta ah baatooyinka iyo hagardaamada burburka ay ka geysteen dhulka Suuriya waqtigii uu joogay nidaamkii tadqalka ahaa ee iyagu meesha ku hayeen Iiraan oo si degdeg uga soo jawaabtay ayaa diiday oo iska dayrisay inay wax joogitaan ciidan ah ku lahayd Suuriya sidoo kalena tirada lacagta la soo bandhigay ee 50 bilyan ah ayay beenisay kuna tilmaantay ama tibaaxday been la buunbuuniyay iyo waxaan sal iyo raatoona midna lahayn